رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا وسهل لنا قيامه وصيامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهر رمضان. walaalayaal waxaan in sha allahu tacaala idiin soo gudbinaynaa tv-ga kalsan barnaamij ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaanka ah, axkaamteeda, sida ugu wanaagsan ee qofka muslimka looga baahan yahay in uu u dhaqmo inta uu ku jiro bisha barakaysan ee ramadaanka ah, sida ugu wanaagsan ee uu qofka muslimka uga faa'iideysan karo bishaas barakaysan, axkaamteeda iyo wax kasta oo ku tacalluqa ayaanu in sha allahu tacaala barnaamijkan oo la yidhaahdo marxaban yaa ramadaan, soo dhowow bishii barakaysneed ee ramadaaney, waxaan idiin soo gudbinaynaa in sha allah axkaamta ku tacalluqda bisha ramadaan. ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu xaqa carabkay ku sugo, inta i daawanaysana inuu quluubtooda u furo, una naga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana. walaalayaal, waxaa ilaahay mahadiis ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuuna gaarsiiyey bishii ramadaan ee barakaysnayd maalmaheedii u horeeya aan ku jirno. waxaynu ka hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee bisha ramadaan lagu soo dhoweyn karo iyo axkaamteeda in sha allahu tacaala ayaynu ka hadli doonaa. bisha barakaysan ee ramadaanka ah waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu ka faa'iideysto mawsimkaas ama xilligaas khaaska ah ee laga yaabo cumrigiisa inaysan dib dambe usoo marin. waxaynu xalaqadan kusoo qaadan doonaa in sha allahu tacaala, annaga oo xalaqo walba u khasisi doona oo u gooni yeeri doona cinwaan khaas u ah, iskuna dayi doona in sha allahu tacaala dadka daawadayaasha in aan u faa'iideyno, maadaama xalaqadan tii u horeysay ay tahay. bishii barakaan ee ramadaanna ay hadda noo bilaabanayso, sidee ugu wacan oo ugu habboon oo ugu fiican oo ugu wanaagsan oo loo baahan yahay qofka muslimka ah in uu ku soo dhoweeyo bisha ramadaan. dad badan waxa ay ku soo dhoweeyaan mashquul ay ku noqdaan aswaaqda iyo cunto inay soo tuurtaan iyo inay subermarketyada ku cararaan iyo qalbigoodii oo dhanba waxaa siinaya gaajo iyo waxbaa idinku soo foolehe maaragta cunto raadsada iyo wax noocaasa. marka sida ugu wanaagsan oo bisha ramadaan lagu qaabilo ama lagu soo dhoweeyo ama ay naga mudan tahay inaan kusoo dhoweyno waa sidii nabigeenii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii kiraamka ahayd ee barakaysnayd ee wanaagga badnayd iyo dadkii wanaagsanaayo taabiciintii iyo muslimiintii maaragtay diintan na soo gaarsiiyey sida al-aima alarbaca wakayrihim, dadkii salafu saalix ahaa sidii ay kusoo dhoweyn jireen. waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah in uu kusoo dhoweeyo bisha ramadaan ilaahay baryid uu baryayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku mahadnaqayo in uu bishii ramadaan gaarsiiyey. allahuma laka shukru inuu dhaho inaad bishii ramadaan i gaarsiisay. maxaa saas u dhahaysaa? maxaa yeelay waxaan ognahay dad badan oo axibadeena aan jecelnahay ama qaraabo nala ah ama asdiqa nala ah ama jaar nala ah in aan ilaahay u suurtagelin inay gaaraan fadligaas faraha badan ee bisha ramadaan oo ilaahay u oofsaday subxaanahu wa tacaala. isaga in loo suurtogeliyey oo u gaaray waa wax runtii fursad weyn ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala in looga mahadnaqo u baahan. cibaadadaas weyn
inuu ilaahay duca kusoo dhoweeyo allahuma laka alxamdu allahuma laka shukru ilaahu ii barakee bisha ramadaan ilaahu khayrka iwaafaji ilaahu acmaasha saalixa ii sahal ilaahu qiyaamka ii sahal ilaahu soonka ii sahal inuu saa kusoo dhoweeyo ayaa loo bahan saas bayna ahaayeen salafu saalix iyo dadkii muslimiinta ee wanaagsanaa qofka muslimka hadduu bisha ramadaan gaaro nebigu sal allahu alay wasalam marka uu bisha arko waxa ilaahay buu baryi jiray subxaanah wa tacaala wuxuu dhihi jiray allahuma ahillahu calayna biاlyumni wاliimaani wاsalaamati wاlislaami rabbii warabuka allahu saas buu dhihi jiray markuu bisha arko qamarka dayaxa markuu arko bisha u dhalatay wuxuu dhihi jiray allahuma ilaahayow ahillahu calayna ilaahu noogu dhali bisha tan barakaysan mana ahayn ducadaas bisha ramadaan keliya khaas kuma ahayn bil kasta markuu arko nebigu buu ku ducaysan jiray duco khaas u ah bisha ramadaan ma ahan waa duco soo aroortay xadiidkaasna waa xadiid xasana maarata imaamu axmed iyo keyrkiis iyo tirmidi ayaa wariyey sida imaamu albani uu leeyahna waa xadiid xasana jaamicu saxiixa ayuu ku yaalaa bil markuu nebigu arko ducadaas ayuu ku ducaysan jiray oo ah macnaheedu ilaahayow bishaan waxaad noogu dhalisaa maaragtay barako iyo iimaan iimaan waxa ugu weyn ilaahay subxaanah wa tacaala lagaga baryo weye iyo barako iyo nabadgelyo iyo islaam ilaahu bishaan markaasuu bisha isagoo la hadlayo wuxuu dhihi jiray biley adiga iyo anagaba ilaaheen waa rabbigeenina abuurtay saas ayuu dhihi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam markuu qofku bisha uu arko waxa fiican in uu ducadaas uu dhaho oo uu ku ducaysto oo maaragtay ilaahay subxaanah wa tacaala isaga oo ku mahadnaqaya fadliga faraha badan ee ilaahay subxaanah wa tacaala uu u suurto geliyey inuu dhaho rabbii warabuka allahu subxaanahu wa tacaala oo uu ilaahay subxaanah wa tacaala isku bihinbihiyo ilaahay subxaanah wa tacaala uu baryo ilaahay subxaanah wa tacala dadka selafka waxay ahaayeen bisha ramadaan 6 bilood intay ka dhiman tahay ayay ilaahay baryi jireen waxay dhihi jireen ilaahu bisha ramadaan na gaarsii ilaahu bisha ramadaan na gaarsii laanna waxay og yihiin fadliga iyo ajarka weyn ee ku jira bisha ramadaan markii ilaahay uu gaarsiiyo oo ay soomaan bay haddana waxay 6 bilood bay baxay baryi jireen waxay dhihi jireen ilaahay naga aqbal bishii ramadaan acmaashii saalixa aan samaynay soonkii iyo salaadii iyo qira'at qur'aankii iyo qiyaamkii iyo tahajudkii iyo ictikaafkii ilaahu naga aqbal ilaahay bay weydiisan jireen marka duco baa kusoo dhoweynaysaa kow mahadnaq ilaahay aa ku mahadnaqdid oo dhahdid ilaahay aa ku shukridid ilahay inu kusoo gaarsiiyey oo fursadda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey waxaa kaloo kusoo dhoweynaysaa farax in la farxo ya mawaasimta khayrka ah iyo waxa wanaagsan waa lagu farxaa ilaahay bishii barakaysneed ee leylat اlqadri ku jira ilahay inuu ku gaarsiiyey inaad ku farxdid ayaa loo baahan yahy walidalika nebigu wuu ugu bishaareyn jiray saxaabada wuxuu dhihi jiray sal اllahu alيه wasalam jaaءakum shahru ramadaan waxaa idin yimid bishii ramadaan shahru ramadaan baa idin timid oo mubaarak ah oo kataba allahu calaykum siyaamahu oo ilaahay idinku qoray soomkeeda fiihi tuftaxu abwaabu اljinaan bisha ramadaan waxaa la furaa albaabada waxaa la balaqaa janooyinka wa tuqlaqu fiihi abwaabu اljaxiim waxaana la xiraa abwaabta maaragta xadiidkaas insha allah wuu noo imaan doonaa waa si sharxi doonaa waxaa ku jirtay wa sulsilat shayaaiin shayaaiintana waa la jeebeeya waa la isku dhejiyaa oo waxa weye waa fursad cadiim ah xadiidkaas waa xadiis maaragtay nebiga ka ansaxay sala allahu alيh wasalam marka inuu qof ku bishaaraysto waa sida iyadoona wanaagsan ee qofku inuu bisha ku istiqbaalo oo kusoo dhoweeyo loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qofku in uu ku istiqbaalo bisha ramadaan oo uu kusoo dhoweeyo alcasmu saadiq calى iqtinaamihi wa cimaarati awqaatih in uu goosto oo uu qalbigiisa ku gunto in uu bisha ramadaan ka faa'iidaysto sida ugu badan ee uga faa'iidaysan karo maxaa dhacay waa fursad haddana fursaddaas inay mar labaad soo mari doonto ma ogid bal waxaadan ogeyn inaad fursadda aad dhamaysan doontid maalin hadday ku dhaafto maalinta labaad inaad gaari doontid ma ogid walidaalika waxaa fiican inuu qofku goosto in uu fursadda ka faa'iidaysto alramadaanu fursatun qaaliya waa fursad aad iyo aad qaali u ah oo qofka muslimka hal rabo inuu ka faa'iidaysto marka inuu qofku waxaa loo baahan yahay uu fursaddaas ka faa'iidaysto oo uu goosto inuu sida ugu wanaagsan iyo sida walidaalika waxaan ugu naseexaynaynaa dadka muslimiinta ah inay isku dayaan inay fasax qaataan fasaxyadooda in ramadaan ku aadistaan acmaasha in badanoo ka mid ah inay iska yareeyaan oo iska gaabiyaan maaragtay
barnaamijyada tarfiihiga inay iska xiraan bisha ramadaan barnaamijyada tarfiihiga barnaamijyada xaaraanta horta sideeda ramadaan kayr ramadaan ba inay iska joojiyaan laakiin barnaamijyada tarfiihiga waxa entertainmentiga ah maxaa yeelay fursad aan ku sugayn baa meeshaan taal abiska mobeelada iyo ku jira waxyaalahan dadka hadda mashquuliya inuu qofku iska joojiyo ayaan ugu naseexaynaynaa facebooka iyo iska delete garee whatsappka iyo twitterka iyo programmada maaragtay facebooka iyo maaragtay youtubeka iyo waxyaalahaas waxa weye fursaddan ka faa'iidayso hadhow haddaa rabtid wixii kale dib u dhigo maaragtay bishii ramadaan waxaa loo bahanya inaan uga faa'iidaysano inaanu cilmi ziyaadsano alcilm walfiqh biaxkaami ramadaan inaan barano maxaa yeeley waa rukn min arkaan islam waa fadli badan baa ku jira inaad calaa jahli aad cibaadada u gudatid ma haboona ama ajarkiibaa kaa naaqisaya ama waxa laga yaaba inuusan aad si khaladaba u soomaysid maxaa lagaaga baahan yahay niyadda see lagaaga baahan yahay arkaantu maxay tahay soonka maxaa soonka buriya maxaa maaragtay waxaas inaad cilmi ziyaadsatid oo bisha ramadaan bilowgeedaba aad axkaamta ramadaanka masaajidada aad tegtid oo masaajida badanaa duruus ramadaan ku saabsan ayaa laga akriyaa waxaa kaloo loo baahan yahay in bisha ramadaan aan kusoo dhoweyno ilahay inaan ka ballan qaadno inaan dunuubta aanu faraha kala baxayno alcazmu maaragtay calى tarki alaahaam wasayi'aat inaad goosatid bini aadam baa nahay qof aan gafin ma jirto nebigaaba yihi kulu bani aadam khطأ wakhayru alkhaطa'iina tawaabuun ow kama qaala salى اllahu alay sidii nebigu uu yihi bini aadamko dhan waa gafaa aabahena aadam ayaa gafay maaragtay ilaahayna subxaanaه wa tacaala waa u dhaafaa dembiyada marka waxaad samaysaa marka in aad dembiga aad kala baxdid maaragtay aad ka baxdid ilaahayna u toobad keentid atawba annasuuxa watuubuu ilى اllahi tawbata nasuuxa buu ilahay leeyay subxana wa tacala towbata nasuux waa maxay inaad goosatid inaadna dembigaa mar dambe u noqonayn inaadna gacanta aad kala baxdid inaadna ka shalaydid dembigii aad gashay hadi hiya towba annasuux haddii uu yahay wax aad bini aadam aad ka gashay inaad bini aadamkii wixii aad ka qaatay aad u celisid ama aad ka dalbatid inuu ku cafiyo waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah bisha ramadaan inuu kusoo dhoweeyo inuu uga faa'iisto inuu xaqa iyo diinta u ka qayb qaato dadka inuu gaarsiiyo wadamadan badana aan ku noolnahay kolley anigu aan hadda maanta meeshan ka hadlay tvgan ku yaal waa westernka waa ingiriiska iyo dadka muslimiin badan oo ku nool wadamada maaragtay hadduu alla ku roon yahay qarbiga loo yaqaama westernka inay ka faa'idaystaan inay dadka gaalada diinta u sheegaan inay xaq u sheegaan iyagoo isticmaalaya biliin si jilicsan usluub wanaagsan dhaqan fiican akhlaaq wanaagsan iyo dadka kaloo muslimiintaah oo iska dhunsan laftigooda inay soo hanuuniyaanoo ilaahay ka cabsada ay dhahaanoo gabdhuhu gabdhaha xijaabka u sheegaano dhalinyarada masaajidada kusoo xiraano qofku inuu bisha ramadaan uu sameeyaa loo baahanya change iyo isbedel iyo inuu ka faa'iidaysto inuu wax khayr ah communityga iyo bulshada kusoo daro bisha ramadaan waxaa loo baahan yahay qofku inuu furo safxad cusub bage cusub naftiisa bulshada uu la nool yahay qabla dalika intaa ka hor maca allahi subxaanaه wa tacala inuu bej cusub furo oo yidhaahdo ilaahayow waan gafi jiray waa kuu toobad keenay ilaahayow camalkayga waa hagaajinaya waalidkiis haddii maaragtay uu hagaajiyo maaragtay mucaamaladiisa walaalihiis mucaamalada u leeyahay muslimiinta si ula dhaqmayo bini aadamka o dhan si ula dhaqmayo waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah in uu ilaahay subxaanaه wa tacaala uu awala wa qabla kuli shay in uu la musaalaxoodo oo uu la heshiiyo see ula heshiinaysaa ilaahay ilahay inaad ka cabsatid weye saa ilahay ula heshiinaysid awaamirtiisa inaad raacdid weye nawaahidiisa inaad ka dheeraatid weye ka fogaatid weye kadibna ilaahay subxaanaه wa tacaala khalqigiisa inaad mucaamalo nebigu wuxuu yihi sal اlه alيه wasalam xadiis saxiixa oo nebi ka ansaxay itaquu اllaha xayثuma kuntum waatbic sayiئaةa alxasanaةa tamxuha wakhaaliq الnaasa bikhulqin xasan culamadu waxay dhaheen xadiiskaas waxa uu noo sheegay saddex shay calaaqada adiga ilaahay ka dhexaysa itaqi lah xayثuma kunta calaaqada adiga naftigaada ka dhexaysa bini aadam baa tawaagafaysahay wa atbici sayiئaةa alxasana tamxuha hadduu gaf kaa dhaco wanaag raaci wanaagaas ayaa xumaantii tirtiraya wakhaaliq الnaasa bikhulqin xasan dadkana waxaa kula dhaqantaa waxaa loo bahanya bisha ramadaan inaan ku istiqbaalno ikhlaas ilaahay subxaanaه wa tacaala inaan cibaadada u gudano si maaragtay ilaahay keliya aan ula jeedno subxaanaه wa tacaala
in salaamatu sadri maca almuslimiin laabteenna aan u xaarno dadka muslimiinta ah, inaan ihtimaam siino waajibaadka ilaahay uuna saaray, inaan aan salaada aanu jamaaca ku gudano inaanu aan maaragtay baan u baahannahay, inaanu nafteenna waxyaalaha gaboodfalka aan ku samayno aan ka fogaano, inaan qalbigeenna aan shirki iyo xumaan iyo xiqdi aan ka fogeyno, si ilaahay uu acmaasha ramadaanka barakaysan aynu samayn doono ilaahay subxaana wa tacaala uu nooga aqbalo. ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo acmaasheena bisha ramadaan ee barakaysan. ilaahay subxana wa tacaala inuu noo sahlo, inuu ilaahay naga dhigo kuwa khayrka u degdega oo ka faa'iidaysta mawsimkaas ama xilligaas khaaska aan ogeyn inuu mar labaadna soo marayo. daawadayaal, xalaqadii u horeysay ee barnaamijka marxaban ya ramadaan intaas ayaanu in sha allahu tacaala kusoo koobaynaa. in sha allahu tacaala nagala socda tv-ga Kalsan hadduu ilaah yidhaahdo, iyo xalaqada labaad oo aan kusoo qaadan doono mowduuc kale oo cusub oo ku tacalluqa bisha ramadaan ee barakaysan. waxaan idinkaga tegayaa amaano ilaahay iyo maca asalaama. والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يمنع